si loo sii ambaqaado dadaalada la xiriiran nabadda iyo dibadheshiinta loona muujiyo ahmiyadda ay leedahay dhiirigelinta nabadoonnada bulshada ka dhex muuqda ee har iyo habeen waqtigooda ku bixiyeen nabadda iyo isdhexgalka bulshada kuwaas oo falo u ahaa in laga gudbo xaaladihii foosha xumaa ee colaadihii ka taagnaan jiray magaalada gaalkacyo ayaa waxaa maanta magaalada gaalkacyo munaasabada dhiirigelina loogu sameeyey nabadoon cabdiraxmaan xasan cawaale layloon iyo nabadoon cabdirasaaq aadan dhooley oo lagu tiriyo inay ka mid yihiin nabadoonnada doorka weyn ku lahaa nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaana nabadoonnadani maanta la guddoonsiiyey gaari iyo abaalmarino kale iyadoona bulshadu sheegeen inay mudan yihiin hogaaminta bulshada munaasabadan lagu dhiirigelinayay nabadoonnada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa waxgarad dhallinyaro iyo haween ganacsato iyo culimowdiin gudoomiyaha golaha sare ee culimmada galmudug sheekh muxyidiin yuusuf barre ayaana ugu horreyn ka hadlay munaasabadda وقتك قيمة السلوات يا ترسول ترسول وهذا وقتك القيمة عليه عبد الرحمن حسن عوالة waxaan ku wareejinayaa cabdirasaaq aadanooy nabadoon qaar kale ma wada socon karaan annagu intaasoo xisbiya ku kala jirna haddana haddaan isugu imaanayno oo tolnimadii iyo wixii la sukaashanayo waxoogaa yararkaa lagu kala duwan yahay aayar mar haddii marmarka qaar laba akhyaar wax isaga fakadaan warukaadii la leeyahay waa maasha allah intaa tal u kaadiya la haysatid wax la heli karaa ma dadku waa isku fakanaya bani aadamku waa isku dhacaya dana eriya odayaashana waxaan leeyahay sidaa hadda ka hor baa talka ku wadeen waa la idinka rabaa dadka sidaas oo ay dhici karto afkaartooda in kala duwanta oo danaha badan leh oo siyaasadda Soomaaliya oo uriya jahalada ku dhex jira saa isugu wadi lahaydeen saa hore isugu wadeenba inaad laban laabtaan kulli dhaqanka waxa aad u qasaya bahal siyaasad la yiraahdo ha laga saarana hadda lama dhihi karo waqtigeedii haysataa ilaa Soomaaliya siyaasadda ay dhaqanka la saaraan waxay la tahay kama naas la baas dadka kale to baas male dhaqankii iyo siyaasadda Soomaaliya waa iskaga milantay way isku dhex jidhaa laakiin mar kasta muhiimadda dadka dhaqanka waa in la siiyaa odayaashu waxay hoggaan u yihiin dadka inay hagaan wixii ilaahay raalli ka yahay ku hagaan qaar ka mid ah waxgaradkii ganacsatadii haweenkii iyo dhalinyaradii kulanka ka qayb galay ayaa bogaadiyey sheegana inay mudan yihiin hogaaminta bulshada gateen in loogu shaqeeyo inta gaarigu shaqaynayo tolku mar labaad bay nabadoonka isku xilqaameen haddii ragga qaarkii ayna la socon dadaalka iyo wanaagga uu tolka maaragtay ay ka filayeen awgeed guriga xaar ku yaala sidoo kale tolku u gaday mar labaad tolku waxay isku xilqaameen in ay mudan tahay mar haddii gaariga loogu shaqaynayo fariista inay gataan gaari kale oo loogu shaqeeyo ilaahay fadligii waa la galay waxaa tala kale lagu sii darooliyay gaarigu kaligiis waa naga googo'aya mid yaroo luuqyada gala waa in lagu daraa asagiina waa la galay labadiiba maanta waa taagan yihiin waana wareejinaynaa haddii ilaahay idmo waxaan rabaa marka inaan warkayga ku koobo xafladanu waa xaflad odayaashii looguna mahad celinayo wixii tolkood u garteenna lagu guddoonsiinayo insha Allah waxaan rajaynayno wax kaloo badanna in tolku wadajirka ku qaban doono xarumihii lagu shaqayn lahaa qabiil ku shaqayn lahaa qabiil ballaaran weeye in la dhisi doono intaanba iyo in ka badanna waa la qabtay tijaabooyinka ka mid tahay odayaasha kaleeto oo shaqaynaya laftigoodu in la shixnadaan rajaynayna haddii ilaahay idmo ugu gudbo annagu maanta waxaan u soo baxnay inaan saaka nimaanaan rabnay 3 saac xoogaa cilad xagga diyaaradaha baa nagu timid sidaas aan u soo daahnay ujeedkeennuna waxay ahayd inaan ka soo qayb galno wareejintii odayaalkii cidda u shaqaynayay ee tolka u qaadimahayay
ayagoo lugaynayo qaar lug laayahay soo maray oo masanaha diyaar ku leeyahay hal gaari mar la yiri ku xamaasha oo tolka ugu xamaala oo luuqyada ugu adeega oo darbiyada la kora qaarigii halaabay marka reeciisa in horkac sameeyay waxa u daliila waxa la hal baawr yaan ugu celin labaha laga dhigo maantana waxay maraysaa guriga lagu soo dara anagoo diyaar baan anagoo kaalinteena diyaar baan u nahay awalna waa bilownay amaan lama dhudhumiyo kii hore anaga bilownay dadku waxay rabaan intay wax sameeyaan in gaal u qarsadaan mood gaariga hore anaga gadnay kii dambana reexmar baa wax ka gaday haddana guriga waxbaan ka dhisaynaa odayaalka in la dhiirigeliyana waxa keenaysa shaqada tolka loo hayo haddaan dhiirigelin la helin qofku waa caajisaya wuxuu yiri salaa carabay xaashay nin libinka xastaaxumay waa yaabe marka waxa la rabaa dhiirigelintaas waa ka mahad celinaynaa waan kala soo qayb galnay diyaar baa u nahay in la is dhiirigeliyo qofkii wax qabtaliyaa waa mahadsan tahay haddii marka loogu daro adeegna waa ka si fiican haddii loo duceeyana waa alxamdulillaah rabbil caalamiin anoo diyaar waxa u nahay wixii gargar iyo garab istaaga oo dhiirigelinta loo samaynayo tolka in loo shaqeeyo loo adeego diyaar baa u nahay waana waxaan doonaa insha Allah kariim tolkuna waa mahadsan yahay gobashiina saan uga soo qayb galnay inaan xil wareejinta oo baabuurta aan ku wareejinayno odayaalka tolka loogu adeegayo awalna loo adeegi jiray haddana loo adeegi doono intaasaan uga soo qayb galnay waana ku faraxsanahay socodka aan soo soconayna socdo ka naxli badan baa u socon jirnay tan ashti xasanaad baan helaynaa tolkuna waa mahadsan yahay kasto ay leeyihiin intaas dabadeed maantay xafladan waxaan is leeyahay ajendadeedu kaliya waxa weeye wareejinta ballanqaadkii loo sameeyay nabadoonnada 19kii bishii 12aad 2022 oo maanta laga joogo 93 maalmood marka waxaan is leeyahay waqti kooban ayaa ballantaas shaqadaas quruxda badan lagu fuliyay ilaahay baa mahad ugu sugnaatay inaan bilowgeedina goobjoog ka noqono dhamaystirkeedina goobjoog ka noqono waxaan diyaar u nahay anaga haddaan dhalinyaro nahay haddii ilaahay idmo in aan ka qayb qaadano sidii aan horeba uga qayb qaadanay wixii cidda horumarkeeda waxaan ciideena u rajaynayaa tawfiiq iyo isku tiirsanaan iyo wax wada qabsi iyo hor u socod aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobkaas oo guriga laga dhawaajiyay kaalintii aan gaariyaasha ka qaadanay mid ka weyn ayaan ballan qaadaynaa haddaan haweenkinahay inaan ka geysano guriga insha Allah gurigu markuu dhismana haddii ilaahay idmo qalabayntiisa furaan lagu soo wareejiyo asoo goglan baa naga taqaanaan haddii ilaahay idmo waxa codsanayaa in guriga spacekiisa aan lagu yareynin kaliya si beeshide waa beel ballaaran yaa meel cibaado meel de gabdhihii iyo dumarkii qaas ah adigu de waa iska fahmi kartaan meel space weyn in loo helo wixii qalabayna iyo wixii decorationana gabdhaha looguma tagaayo biidnillah dhismihiisana waa ka qayb qaadanayna aad baan u mahadsantihiin iga raali ahaada waa qiiraysanahay والله أنا وحن كهل ما قرنايو آد بقى تنتهين وإذا كفرحني ونقيرة جلسين الحمد لله قفك هيستا قرب كانوا كلته أي أسقناتين ود إلهي هد عليو تلكنا ينبضونا ذينا هد علينا من لا يشكر الناس لا يشكر الله نبضون عبد الرزاق آدم لولي نبضون عبد الرحمن حسن عوال ليلون أي يجونا هل إلي بلشدي أي نبضون لذا أو أهين أو قتي أو المرين تأي ما مسد قيمة عليه. زحمة على الشركة وهالله هرينا كارين تأي كقاتين العلاء مركي الأرورين هاي رجع نبى ميال بهيبر وبيتاسبوا برام بالله أيام ما حنوتنا يوم أرورسان ولي بقاران كله وطلق قريب كمية هم وين تقولوا يقصوا براتي أرورين هاي ويقدرتين ويقاتين لبدي قيمون نسكت معلم بيتحيان رأي رجل قاران كي يكسر أسدين فيان رأي سنة قاران كيسيان أيوة نسكت دوما وجبلا قبل هذا الوقت هذا هي حتى نشقوين بدن هدي الله لو قدره بلن قاعدين قيم كقاعدين هي واحد صاحب رأي تلك لما نسكت يبيدوا نودون كا مجا إسكالي أنا قلنا سبتون هذا كمية هاي كهيجك هذه ولا شقيت تطلقوا يقول على مدار دين مهيو إن أنا أقول شقيانا ديار وهاي وأنا أمريكا مجا إن أنا ويسكمل يطلق عليه هذه تلك يحيى أنا مجا ميلانين
waxaa keenaya khilaaf la'aanta iyo isku duubnaanshaha iyo sida tolka marka aan shaqo u doonno iyaguna ay noo garab istaagaan oo noola qabanayaan amin baan anagu adeegayaal baan nahay shaqada la qabanaya tolka iskale qayb kasto ay tahay waxa ka qayb qaata oo garabkayga istaaga oo meel kasta fureed noo salaala keen tolkii na imaamaday ee maryahan saaray haddii tolka yaxu yahay magac ma yeelaneen amaan marin baa buuraha oo tolka ku adeegnana nalama siiyo anaguna waxaan dareemayaa in si hagar la'aan ugu shaqeyno haddana inaan kusii shaqeynaa jecelnahay ilaahay xaggiisa bini aadam baan casuumayn haddii hadda waxu naga qaldamaan addoommaan nahay ilaahay ha noola dembi dhaafo ha nala cafiyo ilaahna waxaan weydiisanaynaa wixii aan qaladnay oo gafa inuu naga cafiyo dhammaantaya tolkana wixii hadda ay yidhahdaan war maanta waa la simbiri dhexdeen iyo haddee tol weyn weeye waa iska kaaya cafin kara in la iska kaaya cafiyo waa dad shaqo ku jira hawl badan baa kugu imaanaysa cafinta adan tolkan si guud uga mudanay xurmada gaarka u muujiyey raggii hortooda fadhiyey baa oran karnaa shaggii shaqaynayay ma rabo inaan iraado aad baan idinkugu mahad celinayaa wuxuuna meesha ay ka soo baxeen wax ka baraka badanna ilaahay ha geliyo soo dhawaado talow reer ciise deegaanka ay joogaan waxay ka mid yihiin dadka uu ilaahay muuqaalka ku siiyey haddii ay noqoto madaarista waxbarashada islaamiga waa dad ka muuqda masaajidda iyo madaarista lagu daraaseeyo diinta islaamka inta badan magaalada waa laga warqabaa ama imaam masjid ha noqoto ama sheekh wax daraaseeye ha noqoto amba maxay tahay meel machad oo islaamiga wax lagu baro ummadda muslimiinta ha noqoto waa dad ka muuqda ilaahay baana mahadda iskale in looga shukriyana mudan haddii ay noqoto maadiga iskuullada kuwa ugu tayada room bay hayaan oo Soomaaliya mararka gobol ku soo baxa kuwa ugu tayada roon oo Soomaaliya mararka gobol ku soo baxay hayaan ayadana waa wax ilaahay looga shukriyo dad badan macnaheedna waa soo baxay isku xirku marka wuxuu keenayaa in lagu soo haybsado dadka isku xirani waxay keenayaan waxba isku haya maxay yihiin waxa isku haya waxa isku hayaa waxay noqon karaan wuxuu qofka ka maqaro banaanka ka joogo cid kale ahayna uu raadiyo asagana lagu tixgeliyo noqon karaan ilaahay baa ku mahadsan tolka intaas aan uga mahad celinayaa waxay leeyihiin reer ciise haddii maanta la yiraahdo cadiyo waxa la bixiyo dad la taba hadaysan joogin bay ku leeyihiin deegaanka haddii ay noqoto ummad lala hadlana kuwa la dhowray ku leeyihiin oo magac ku leh deegaanka ay joogaan iyo Soomaalida maqasay intaba mahadaas Allah iskale waxaan anagu kasbanay ma aha shirkeenaani wacdi iyo waciidba waa mudan yahay wacdi waxa ah hadaan quruxdaan aan haysano ilaahay uga shukrino la in shakartum la asiidanakum ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu siyaadiyo hadaan ku shukrino dhamaantay aanu naahno ilaahay waa ku mahadsan yahay ilaahay baa mahadle alxamdulillah dhamaantay saasaan leena haddii aanan marka ku shukrinaan gefno shukrigi wala in kafartum in cadaabi la shadiid mule nicmadu waa suuli doontaa markasta waxaan isfaraynaa waxaan haysano oo wanaaga ilaahayna uga shukrino waxaan haysano oo wanaaga ilaahayna uga shukrino waxaan haysano wanaaga walaalkeen kale inaan la jeclaano inuu asaguna sidoo kale loo noqdo haddii mafsada jirto si ay ku soo gaartaba waa ku soo gaaraysa in mafsada karta marka aanu tamanino inay baabado oo meesha laga saaro oo wanaag ummadda la gaarsiiyo annaga saasa isku dardaarmayna inaan anagu isku tiirsanaano oo wada noolaano oo xumaanta la reebo xumaan hal la reebo ficil iyo qowlba ha loo reebo waan rabaa intaas inaan mahadcelinta uga soo taqaanaa ilaahay mahadiisii ku soo dhaweeyo bani aadam ma soo koobi kara mahad ilaahay waan rabaa inaan gaar ahaan marka dib ugu laabto mar haddii horeynta Allah iskale raggii hawshan ka soo shaqeeyay oo hore loo tilmaamay nuuca yihiinba waxaan ugu ducaynaynaa maadaama shirkaan wax yar dib ugu laabtee 93 Soomaalidu markii mar la isku dayay in gobolkan lagu heshiiyo shir baa lagu qabtay xamar meeshii loogu magac daray guriga nabadda guriga Yuusuf Ismaan gurigiisaas qofkii xilliga jooga dareemaya awoow Cabdi Barre mar dambe war soo socday waxa la yiri Cabdi Barre warkoodu ku jooga aniga inaan u magac bixiyo ayaa iigu hartay shirkaan tooba leeyahay anaga marka waxa la yiraahdaa shirkaan tawfiiq baa la yiraahdaa mahad celin way waa shirki mahadda shirkaan ilaahay baa mahad iskale
waxaan rabaa inaan mahad celiyo raggii inta saakay diyaarad soo raacay oo xamar ka yimid weli taagan xushmadaas ilaahay idinkana kugu bedelo xushmad alla xaggii ka timid raggii 4 bilood u taagnaa shaqadan ay soo afjaraan ayagana waxaan leenahay wax ka fiican ha buuxiyaan waan rajaynayaa qofku markuu wanaag sameeyo oo alla dartii u sameeyo oo haddana qaraabo uu si sameeyo waa ka sii macno weyn tahay mujtamaca kale waxa kala dhaxeeya waxa qaraabadu anaga marka aan oran karnaa waxaan isfaraynaa alla ka cabsi waxaan isfaraynaa qaraabo xiriirin waxaan isfaraynaa nabad iyo islaax cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacay